عليكم ورحمة الله وبركاته أهد بقى إدين سلامي دمانتين أرديدا كحرن Sunrise Academy كسو دوادا عشر كلابات مانتو حول حريرا 10 كوباد فلن هدي آدم سو داوان 10 كوباد وحان كاعدسن لا إنا سو داواتيد سي آد 10 كان أولا سي سعوديد هدي آد جانلكا أكو عصوب تهي سو دو سبسكرايب سارا جانلكا سي آدو هشد موقالدان يكوو كالو لمد haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalada aan soo gelino fadlan la sii wadaag asxaabtaada muuqaalkan hadduu ku anfacayna ama aad ka heshay fadlan like saar wixii fariin iyo fikir aad noo haysidna commentiga noogu reeb casharka labaad ee maanta wuxuu ku bilaabanayaa desktop computers can be identified by model number and model name desktop computerka waxaa lagu kala gartaa ama lagu kala ogaan karaa model number iyo model name number ku qoran oo ayaga ay leeyihiin iyo magaca ayaga ay leeyihiin unbaa lagu kala garan karaa desktop computerka halkan waxaa ku aragtaan desktop family midka ugu horeeya waxaa la yidhahdaa 4004 sidoo kalena loo yaqaano PC waa midka ugu horeeyay desktopka ugu horeeya lasoo saaro waaye midka labaad waxaa la yidhahdaa 8086 sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa PC ama XT waa midka labaad ee lasoo saaro waa desktopka labaad ee lasoo saaro midka saddexaad waxaa la yiraahdaa 80286 kan afraad waxaa la yiraahdaa 80386 kan shanaadna kan afraadna waxaa la yiraahdaa 80486 80586 kaasoo dib magac looga bedelay oo la yiraahdo oo loo bedelay Pentium 1 midka ku xiga waxaa la yiraahdaa Pentium 2 kadib waxaa ku xigay Celeron kadib waxaa ku sii xigay Pentium 3 Pentium 4 dual core Core 2 Duo Core 2 Quad kuwii ugu dambeeyay oo lasoo saaro waxaa la yiraahdaa Core i3 Core i5 Core i7 iyo Core i9 waa afartii ugu dambeysay oo haddartaan caalamku u badan yahay inuu isticmaalo oo la haddartaana shaqeeyo desktop computers divided into 3 units desktop computerada desktopka ah waxay u kala baxaan saddex nooc ayaa loo kala qaadaa saddex unit ayay u kala qaybsamaan midka ugu horeeya waa input device system unit iyo output unit ama output device sawirkan halkan nooga jeedaan waa shaashada monitorka taasoo loo yaqaano output device oo ah output device kaasoo wax soo gudbiyo halkan boxkan weyn asagana waa desktop computerki ama system unit ayaa loo yaqaanaa waa system unit asagana speakerada ayaga waa output device keyboardka waa input device mouse-kana waa input device sawirradooda gadaal ayaan ka tusi doonaa input device-ka iyo output device-ka iyo system unit components-ka intaba halkan waxaan ku haynaa input unit-ka muxuu yahay input unit this unit contains devices with the help of which we enter data into a PC waa aaladaha aan isticmaalno kaasoo daatada aan ku gelino computerka this unit makes link between the user and the computer waxayna xiriir u sameeyaan qofka isticmaalaya computerka iyo computerka laftirkiisa tusaale ahaanna waxaa keyboard mouse scanner camera iyo microphone halkan waxaan ku haynaa haddana system unit also called as central processing unit ama CPU tan waxay tahay brain of the PC ama brain of the computer waa qaybta ugu muhiimsan ama maskaxda ama halka ugu muhiimsan ee computerka it's a box with a group of components waxayna tahay box ama qalab yar oo ka kooban aalado fara badan system unit components-ka maxay tahay shayyaasha ama waxyaabaha ku dhex jira system unit-ka midka ugu horeeyo halkan ku qoran waxay tahay SMPS kaasoo loo soo gaabiyey switch mode power supply kaasoo power siiyo ama koronto siiyo computerka ama systemka memory-yaashu way badan yihiin midka ugu horeeya waa HDD oo laga soo gaabiyey hard disk drive waa external memory gadaal ayaan kasii macnayn doonaa noocyada uu leeyahay iyo sidii u kala baxaan kan kale waxaa la yihahdaa CD ama DVD disk drive kan kale waxaa la yihahdaa follow disk drive kan kale waa RAM oo laga soo gaabiyey random access memory waa nooc ka mid ah memoryga ROM oo ah read only memory iyo motherboard oo ah main board ama alaabtan qalabkan oo dhan meesha ay ku dhex jiraan ama ay ku dhex samaysan yihiin waa motherboardka boardska ayakana waxay leeyihiin front panel
iyo back panel boards kala jiro ayakana sawirantooda waan tusi doonaa. Microprocessor iyo lithium cell. Output unitka muxuu yahay marka? Output unitka waxaa weeye waa output devices translate the computer's output into a form understandable by the user. Computerka saa idin sheegay wuxuu isticmaalaa machine language ama luqad isaga u gaar ah oo asaga aan lala fahmi karin. Saas darteed computerka wuxuu soo saari lahaa ama banaanka uu soo saari lahaa oo qofka uu tusi lahaa waxaa translate gareeyo ama turjumo output device-kaas, kuwaasoo u turjumo hab uu qofka isticmaalayo uu fahmi karo. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah monitorka, printerka iyo speaker. Sawirantooda waan tusi doonaa intaba. Input devices. Midka ugu horeeyo waa keyboard. Keyboard waa taqaanaan daatada lagu qoraa, kaasoo loo isticmaalo in wax lagu qorto kadibna computerka loo gudbiyo. Mouse-ka asagana waa taqaanaan sida loo isticmaalo, waxaan loo isticmaalaa in lagu hago falaarta computerka. Scannerka waxaa loo isticmaalaa in document lagu scan gareeyo. Output devices. Midka ugu horeeya waa monitor, waa shaashadan u jeedaan. Kan labaadna waxaa la yiraahdaa printer. Printerkan waxaa loo isticmaalaa in wax lagu daabaco. Sidoo kale speakerka, tan saddexaad waa speaker. Speakerkan waxaa loo adeegsadaa in wax lagu dhageysto ayadana. Intaan oo dhan waxaa la yiraahdaa output devices. System unit components. System unit CPU-ga ama boxkaas madowga qalabka uu ka kooban yahay ama qalabka ku dhex jiro. Midka ugu horeeyo sawirkiis waa kan, waa switch mode power supply. Waxaa loo adeegsadaa in koronto ama powerka uu siiyo ama uu maaragtay ama power inuu siiyo computerka. Hard disk drive. Hard disk drive waa qayb ka mid ah memory-ga. Insha Allah tacaala casharada danbaan ku sharxi doonaa inaan kasii hordhac ma rabo. Sidoo kale disk drive asagana disk iyo DVD drive asagana waa qayb ka mid ah maaragtay storage device ka mid ah oo wax lagu kaydsado. Kuwaasna gadaal ayaan ka sharxi doonaa noocyadooda iyo intay u kala baxaan. Sidoo kale floppy disk drive asagana waa qayb ka mid ah maaragtay memory-yaasha wax lagu kaydiyo. Sidoo kale RAM oo laga soo gaabiyay random access memory asagana waa nooc ka mid ah memory-ga, gadaal aan ka sharxi doonaa. Sidoo kale ROM oo ah read only memory. Faahfaahin dheeraad gadaal ayaan ka siin doonaa inaan kasii hordhac ma rabo. Sidoo kale motherboard. Motherboard waa kana, waa mainboard-ka intaasoo qalab ah badankood ay ku dhex jiraan ama ay ku dhex samaysan yihiin. Midka labaad waa ports oo ah back panel ports. Qaybta dambe ee systemka ay ku dhagan yihiin. Fiilooyinka meeshan la geliyo waxaa ka mid ah BS board, BS2 board oo keyboard loo isticmaalo, BS2 board oo mouse loo isticmaalo, USB board oo loo isticmaalo fiilada USB-ga oo lagula xiriiriyo ama telephone ama computer ama nooc walba loo isticmaalo, Ethernet board oo internetka loo isticmaalo ah, serial board, printer board oo printerka loo isticmaalo, VGA oo ayadana monitorka loo isticmaalo oo laga soo gaabiyay video graphics array ama video graphics adapter. Sidoo kale speaker oo speakerka loo isticmaalo, line in, microphone, game board, joystick. Intaana dhanba waxay ku dhagan yihiin qaybta dambe ee computerka, waxaana loo yaqaanaa back panel boards. Microprocessor. Microprocessor sawirkeeda waa kana. Insha Allah tacaala casharada danbaan ku sharxi doonaa noocyada u kala baxda iyo waxay qabato inaan kasii hordhac ma rabo. Lithium battery cell asagana waa battery ku dhex jiro motherboard-ka kaasoo power siiyo ama power gareeyo saacadda iyo taariikhda computerka. Casharka labaad intaan uu ku eg yahay. Aad ba ugu mahadsantiin daawashada muuqaalkiina. Haddii aad ka heshay casharka sii share garee asxaabtaada la wadaag. Aad ba ugu mahadsantihiin saad noogu xiran tihiin. Fadlan channelka subscribe saaro haddii uusan subscribe ku saarneen, gambaleelkana furo si aad fariinta u heshid markasta muuqaal soo gelino. Sidoo kale waxaad nagala xiriiri kartaan page-ka Facebook aan ku leenahay oo Sunrise Academy ah. Wixii fariin aan noo haysan halkaas waa noogu soo diri kartaan. Lambarka WhatsApp-kana sidoo kale nagala soo xiriiri kartaan wixii faahfaahin dheeraad ah u baahantiin. Muuqaalka sii share garee. Haddii aad ka heshay like saar, comment wixii fariin noogu reeb.
aad baan ugu mahadsantihiin sida noogu xirantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.